ma leedahay hibada xigmada oo Allah subhanahu wa ta'ala ku siiyay ama Allah bixiyo haddii aadan haysan aniga adiga waxaan alla weydiisanaynaa inuu nu siiyo nagu irsaaqo xigmad aan kula wadaago xigmadan dhaxmartay wadaad iyo nin ganacsato ah oo aad iyo aad u kibir badan oo dadka soo saara saabuunta lagu qubaysto ama waxyaabaha wasaqda gooya wuxuu wadaadkii ku yiri ilaa iyo waqti dheer waxaa laga hadlayay diin waxayna diintu sheegtaa baa tiri wanaag meeqaad garanaysaa dad aan wanaag samaynaynin adduunka maanta waxaa la isku laynayaa wanaag xumo hunguri dhibaato rafaadyada maanta adduunka yaala cidna aysan ka dhaqarsanayn oo qof alla garanaya uusan samaynayn buu tusaale ahaan u soo qaatay isagoo ka dhigaya in aysan diintu ahayn ama aysan diintu ahayn mid xal ka noqon karta dhibaatooyinka maanta yaala haddaba muusan u jawaabin wuu ka dhageystay waxay mareen ama ay ag mareen ilmo yaryar oo aad u wasaqaysan oo wasaq aad iyo aad u fara badan qaba wuxuu ku yiri waxaad ii sheegtay saabuunta aad shaqaysaan ama saabuunta kambanigaagu soo saaray inay aad iyo aad u wanaagsan tahay oo ay wasaqda aad u goyso waxaad ii sheegtay waxba kama jiraan saabuuntiinu ma shaqayso waxaad sheegteen waxba kama jiraan wuxuu yiri the only way ay saabuunteenu ku shaqayn karto waa inay dadku isticmaalaan oo isku dhaqaan si ay u dareemaan nadiifka ay tahay wuxuu yiri maxay kula tahay diinta Allah subhanahu wa ta'ala oo kale inay diintu qofka dhaqaysa may kula tahay asagu isku dhaqin in badan oo anaga naga mid ah waxaan u qabnaa haysashada kitaabka quraanka ama hibooyinka Allah nasiye subhanahu wa ta'ala in ay wax noo holinayaan ama noo tarayaan laanagoo aan waxba ku qabsanin xigmadu waxa ay tahay inaad fahanto Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu nasiiyay wixii qofku ku badbaadi lahaa haday tahay adduunka iyo haday tahay aakhiro laakiin xigmadii uu qofku ku isticmaali lahaa ma haysata adigu anigu sama haysta bal isweydiyo nala wadaag hadii Ilaahay